إذا هاتين ميلو بدنا قد داون السان عويسكو هيدي وناكسنادو هبين وناكسن مردلنا دمانتين دتك دافع عالم كنا قد داون يجود هنو دكما إن عوا مركله وحاي مرتيا وأنا كان سوسه لي وعبد ودود عبد قني ودينا عيق فرديا وعميد كم داير تكبد عك وقت حاضر كان لورك الوقت ودي بكشرة عبد ودود مرة بدنا هروان الصهر فريسنا كان اسمه سوسه لي إن بس على مسنا مانتين وقت جيسي أيتهاي عبد الودود كسر دو مرة وادي مرة حاد أن شاء الله هاي فرحنا ويتهاي نسوري سنو وهرين كسر دو داودياش كو داونايا تاجرياش كو إن أديك بكسر دو بدلي بسم الله الرحمن الرحيم مركز كوادي لعبة ما تسكله أنت كبعد وحنو ما دعلي سكرية أو يقع سوميال كان الحمد لله والله أدبنك فرح سنة أنا وسيدو كلنا كل ما وانا دوه ولا عبد الودود انتينا وريسي إنه قد قليل عبد الودود مثلاً تدخلنا على سيليهين أديك نانيس كوغونية عبد الودود ميدت كوي غنان بالعاون داودياش إنه شكتو هدي أيجرتو والله وين أنا شيرين بقول ملينا نستسوقته هذا ما قاعد تلتيله وضدك قاعد بدنا ضدك كوي أنا مثلاً ما والله عبد الودود بس لكن صوبته ما قاعد تلتيله وحكو بدع يارو ما راح ديانون بشرة وعبد الودود لده مركا وإحنا نسميه عبد الودود كبده من بدن بس عياريسي هريال كده ماضي بل إيضاً كنا قرنوا أدت كور بحين كسيسو دافع عالم كلا جدا وني حس جوني بولها عاصمة دا أدكوح هذا يأدي جوبا صورة كشيء تكون جوليستان إن حيدي كساعدي أديك شخصياً سامين أنت لك بتقول هاي كوب كارد ماضي والله الحمد لله أدوان قفر أحسن أورتينا ترتكب جوليسنو المهمة دكوا بدأ ترتكب حسينية معلمين تيدو جوري معلم جمال iyo ciyaarto inta ka baad ciyaartooydeeda wallahi aad baan ugu faraxsanahay si gaar ah aniga sababtoo sanadkan gudihiisu ma tiimka ku soo biiray waa sanadkii ugu horeeyay inuu ciyaaro oo haddana aan kula guuleysto tartankayga ugu horeeyay aad baan ugu faraxsanahay inaan tiim saas oo kale markii hore tiimka waxaan ugu soo biiray ayaa ahayd inaan koob kula guuleysto alxamdulillah ilaahay tiina way rumay maxaad ka caawisay marka dib loogu noqdo golashii assistantkii qaab intee leeg baad adigu isleedahay waad ka geysatay هريال كاني كوحدة هناتو أديك شخصياً محط كوح حسوس بدنا والله وهي حسوس بدنا وح قروح بدنا دمانتي تيم قدرنا سميني بس وحنا مالين واجب كي يقولنا شقة يدي تنوحيد أو وح أنا سووا ما هذا إلا لكن وحنا إن بدن تدالي أو إن كوح هذا دال ده مو بنام سنة بس أنا وح بديرين وصوت وقت عادو كل بن أنا توبر كقاعدين كنا تيمو كانوا كدوانين مركا والله إن سامينتي أنا تصالح وانا أورلان أوكي maxaad ka caawisay marka goolasha laga hadlayo assistantka go'dhalinta oo 10 gool baa filayana dhalisay baliyadana taayna daawadayaasha iyo aniga baa anaga iyo noo dul marto ma walaa 10 gool ma 12 gool baan dhaliyay iyo 9 assist صح alxamdulillah inta in ka badan waan rajeynayna dhaliyay laakiin Allah subhanahu wa ta'ala intaas uu qadaray waan rajeynayna sanadada dambe inta in ka badan aan sameeyo insha Allah ciyaaro badan baad soo ciyaartay kulamo adag oo midba mid kaadka state-man ciyaarad baa soo ciyaarteen kulamadii kugu xiisaha badnaa ee xasuusato adiga kugu cusbaa maadaama Hargeysa stadium ay ahayd markii ugu horeysay koox si rasmi ah waxaan leeyahay markii labaad ay tiinay ahayd maxaa kugu xasuus badnaa wallahi ciyaartii ugu adkeyd horta tiimka la ciyaarnay waxaan filayaa inuu yahay tiimka xanaanada xoolaha labadii game ugu adkaa waxaan sidaan anigu qabo iyo tiimka igu qabo labada tiimkaas aan la ciyaarnay xanaanada xoolaha tiim aad si fiican oo la ciyaaruha tiimkaas aan ugu adkaa ciyaartii ugu xiisaha badnaanka iyo sidoo kale tiimka dawladda hoose balse waxaan oran karaa tiimka xanaanada xoolaha ayaa tiimka ugu adkaan la ciyaar dhaxbad weerar badahayd difaacyo badan ba ka hor yimi ciyaari kugu saameynta badnaa daafacyadaas wajahayseen iyadana Hargeysa stadium maxaad ka xasuusataa wallahi difaacyadii dhammaan igu hor yimid waa isku kaymid mana kala jeclaysto mana kala jilicsto mana kala adkaysto balse waxaan rajeynayaa waxaan ku rajoonayaa inay dhammaantood isku kaymid ahaayeen aan qof ka dooran karay halkan alxamdulillah inaan dhammaantoodna si fiican aan oo caafimaad qabaan kaga soo baxay garoon kubadda cagta wali wada yar tahay kulli ciyaaro adag baa la gelayaa ama champion noqoto koobkii gobolada soo socda horyaalkii markii labaad si rasmi ah u furmi doona sanadka cusub maxaa adiga shakhsiyan kaga qorshaysan mustaqbalka kubadda cagta maadaama imkaad ka soo baxday horyaal dibaaxadiisa lahaa mid kalena uu diyaar leeyahay maxaa ku qorshaysan shakhsiyan والله horta taariikh weyn baan dhignay anaga tiimkayguba oo tartankii ugu horeeyay laba wajiye la saarkay ee caasimada laga furay aan ku guuleysan alxamdulillah
muhiimadeeda koowaad aan iminka rajeynaya inaan insha Allah gobolkayga Togdheer aan koobka gobolada kula guuleysto taas bay dhiman baan play insha Allah hore waad uga mid ahayd xulka chance sumaad helin inaad meel fiican gaarsiisaan laakiin waxaad rajeynaysaa maxay kaga duwanaan doontaa maadaama iminka waayarag badan aad u sii noqoteen kubadda cagta adig iyo tiimkii waqtiga mataliyay wallahi waqti adag buu ahaa waqtigii sanadkii dhow Itoolaan aan ciyaarnay tartanka gobolada laakiin waxaan rajeynayaa inaan waxa ka weynaanay oo aan insha Allah ka cibra qaadanay oo dhamaan khaladaadkaygii gobolkayga kusoo soo xjoonay dibadda alxamdulillah anagoo sidan ka adagna inaan iman doono koobka gobolada haddii la hayna gaarsiiyo haddii la qabto insha Allah iyada waxaa la hadal hayaa dee xafladii tiimkiina lagu abaalmarinayay iyo guuleystayaashii way soo socotaa cabdiwaduud ahaan adiga tiimkaaga iyo dad badan sida baraha bulshada lagu hadalhayo waxaad ka mid tahay dadka loo rajeynayay inay best player ku guuleystaan dareen noocyo baad qabtaa adigu wallahi alxamdulillah horta haddii best player ka noqdo iyo haddii kale waxaan mar walba wax ilaahay loogu mahadnaqo waxayna hadlay wax qurux badan haddii la isiiyo oo cajiiba laakiin ma jecli wallahi jaayisooyinka shakhsiyan laakiin waxaan jecelahay jaayisooyinka guulaha tiimka wada jirka aan gaarno kuwaasan mar walba danayaan xooga saaraa laakiin wallahi haddii la isiiyana alxamdulillah haddii aan la isiina alxamdulillah qofkii kale la siiyo waan u hambalyeynaya sababtoo ah waxaan wali qof waqti badan u harsan oo tanoo kaliya taanay niyad jabinayn sababtoo ah waxaan qof naftiisa kalsooni weyn ka qaba qofkii la siiyana alxamdulillah waan u hambalyeynaya haddii aniga la siiyana alxamdulillah waan ku faraxsanahay ma isleedahay shuruudii wad buuxisay waxyaabaha lagu soo xulayay walow dee shaqadaasi xiriirka ay u taallo adiga shakhsiyan ma isleedahay shuruudii wad buuxisay lagu soo xulayay wallahi taa xiriirka u taalayo sababtoo waa awaar gaara oo ay ku xiran tahay xiriirka cid bixinayaan haddaad buuxisay haddii kaleba laakiin qofkii u qalmo insha Allah in la siiyo rajeynaya haddii la gaarsiiyo taageerayaal badan baa halkan ka daawanaya caawa tiimkaaga Goodir iyo adigaba si shakhsiya Cabdiwaduud ma jiraan fariin shakhsiyo isleedahay caawa si toos ah loo wadaagaysid wallahi taageerayaasheeda iyo taageerayaasha tiimkayga waxaan leenahay dadkan halkan ku soo gaarnay meeshan na soo gaarsiyo idinka waxda ku nayo dhamaan boqolkiiba boqol way idin mahadcelinaa mar walba iyo meel walba aad baad mahadsantiin Cabdiwaduud su'aal ka duwan su'aalihii hore haddaan ku weydiiyo maxaad isleedahay waad kaga duwanaan doontaa ciyaartoydii kubadda cagta soo ciyaaray guud ahaan shakhsiyan adiga ee rikoodhka ku gali doona wallahi inaan wax ciyaartoyda kaga duwanay ma jirtaan jecelahay laakiin inaan ahay nin cibaado badan u intaasaan ciyaartoyda kaga duwanay oo ilaahay ku xidhan insha Allah daawadayaasha halkan ku xidhan championship baad ka qayb galaysaan maxaad adiga iyo tiimkaagu filaysaan berbera marka la tago bisha 19 cisho goboladoo dhan ay isugu iman doonaan maxaad adiga iyo rajaynta lag baad ka qabtaan adiga iyo tiimkaagu wallahi aniga iyo tiimkaygu waan ku rajaynaynaa inaan tartanka ku guuleysano sidaan kan mid ka badnaa ugu guuleysano ka waqti adkaa oo intaas oo bilood la ciyaaray kan waqti yar la ciyaarayo tiimam yarna ku jiraan tiimam aan aad u badnayn macnaha ay ku jiraan sababtoo ah kii ka weynaaba waan qaadnay alxamdulillah ilaahay waa nagu guuleeyay kana waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano haddii la gaarsiiyo aan noqono championska Soomaaliland haddii la gaarsiiyo su'aashan ku weydiinayo mar walba dhabarkaaga waxa ku xardhan calaamadda 5 ama 50 loo yaqaan 55 maxaad kaga duwan tahay lambar kala jeceshay ma jiraan wallahi number 5 aan jeclay number 5 na markii hore tiimka aan ku soo biiray nili baan ku tusay xidhan jiray markii dambe xafsiisankii noqotayna saaxiibkii Cabdi Askari baa tiimkayga oo qaatay marka sidaa daraadeed baan numberkayga number ku darsaday markii hore tiimkayga hore wasaaradda caafimaadka aan ciyaari jiray numberka 5 kan qaadan jiray markii hore laakiin sanadadii 2008 baan ku biiray tiimka intii hore dhan waxaan haysan jiray numberka 19 laakiin markii dambe walow aan tiimka ugu imin inaan numberkii sita markii winankii naga tagay baan numberkii qaatay markii ugu dambeysay tiimka ka imanayna numberkaas aan ku ciyaari jiray numberkan waa number aan jecelahay laakiin alxamdulillah numberkan baan haystaa waan ku faraxsanahay kan imika haystaan ugu dambeyntii tiimkan Goodir aad ka mid tahay waxa la oran karaa waa family baad tihiin ma jiraan wax ku xiiso geliya tiimka markaad joogto wax ka qosliya wax kugu la yaab badan oo gudihiisa aad ku aragto ama shakhsiyaad gooni aad kala kulantay wallahi tiimkaygu waxaan nahay dad isku xidhan anagoo isfaanayn mar walba waqti wada qaata oo tiimka kala duwan oo noogu horeeyo dhiirigelintana siiya macalinkayga ilaahay taa ka abaalmariyo mar walba na garab taagayna dhex joogo ninkan naga qosliya tiimkayga mar walba waa Shabeel iyo kabtanka tiimka Cabdiraxmaan Ilkaas si gaar ah Shabeel ugu dambeyntii xulkii qaranka ayaa isna la soo wadaa adigu rajaynta leeg baad ka qabtaa inaad mar un matasho national team
وحيابها قفل بوك هم يكبد عقد أنت كتير شخصيا هذيك الشيء ده بدور أكتر والله يعني أرتوح قرن كاجد مثل شو كقيمة بدل مشروع هذه كبد عقد وحوق سريع مركو ورا ودن كينا وحوها قوله يعني الحمد لله ديم كقرن كينا الله سميه ورجينا هنا قرن كينا ميل في عن قارسينه هذين نقضي عيارتي الله حولنا الحمد لله ونكفر أحسن هدي عن نقون وينا waxaan noqonayaa qofka ugu horeeyay dhiirigeliya ciyaartooyda loo xiro ugu dambeyntii family-gaaga team-kaaga asxaabtaada halkan maxaad fariin u marinaysaa wallahi halkan waxaan fariin u marinayaa maamaday ay ugu horeyso iyo aabahay iyo family-gayga dhammaan oo gobolka Togdheer jooga waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin dhiirigelinta ay siisay intaas oo dhan aan idinka soo maqnaa sidii dhiirigelin jirteen sidoo kale taageerayaasheedana aad baan ugu mahadcelinayaa iyaga team-kayga goodana waxaan leeyahay insha Allah guuli wali ma dhow saaxiibay Abdulduud Cabdiqani ayaan chance u sahlay caawa dafaaca caalamka naga daawanaysan iyo guud ahaan wadankaba maasim ayaa muuqaalada quruxda madadiisa gudbinayay intaynu ku kulmayno waraysikan la mid ah aniga iyo Abdulduud Cabdiqani waxaan kaga tageynaa habeenku haydii wacnaado salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh